بسم الله الرحمن الرحيم سو dhawaada dhamaan asxaabteena waxaan turjumaynaa buuggii Turkije ama maadada Turkiga oon u diyaarin qaab af Soomaali ahaan ah waan rajaynayna in ardaydeena Soomaaliyeed boqolkiiba boqol uu ka caawiyo barashada luqadda kuwa jooga Turkiga kuwa jooga Soomaaliya kuwa hadda raba inay aadaan iyo kuwa doonaya inay luqad waliba korsadaan luqad markii aad baranayso marka hore waxaa khasab ah in aad marka horeba bilowga hoose aad ka bilowdo kadib waxaad gaaraysaa heer aad boqolkiiba boqol aad ku hadasho insha allahu tacaala cashirkan waa cashirkeenii koowaad waxaynu marka hore ku qaadan doonaa wixii Soomaali adiga ay akhrisan dooneen alifbeetadii maxaa yeelay luqad waliba markii la baranayo alifbeetada in la barto waa khasab adigoon alifbeeta aqoonina ma kuu suurtoobayso inaad horey aad u socoto ama aad cashiro kala barato Turkiga alphabet ayuu dhahaa alifbeetada xarfaha alifbeetada oo shaqal ah lagu yiri waan ku akhrinayaa adigana waad iga daba dhexaysaa si hadhowtii aad dhawaaqi aad isaga saarto xarafka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ilaa iyo luqadda waxay ka kooban tahay 29 xaraf waynu kala qadqaadi doonaa shibaniyaal iyo shaqal intaba waynu kala saari doonaa shaqalka ugu horeeya kaas ma dhehaysid waxaa leedahay mid waliba waxaan ku celinayaa laba jeer ba'da waa b kan waa j oo khafiif ah j kan waad xoojinaysaa waxaad leedahay d ku celi d ku celi kan waa d kan waa fe ku celi fe g gaada marka kor wax laga saaro waxaa la yiraahdaa yumushage inta badan waa silent jumladii ku jirta laguma dhawaaqo marka waxaa loo bixiyay yumushage silent words waa carabka waxaa saaraysaa dalqada korkeeda mise calaamad waxay dhahaan korka kor saaraysaa waxaa leedahay ida korkay leedahay dhibicda waa caadi ah j k le xaraf walba waxaan kuu celinayaa laba jeer sidaas oo la soco me ne o waa ku dhihi karaa laakiin waxaan rabaa inaad dhawaaq ku heshid me ne o pe re se she te u kan waa kana waa ve ye ze sidaan filaya inaad qabato ayaan u malaynayaa si alifbeetada aad si fiican isaga saxdo maadaama ay tahay bilowga luqadda waxaan kuu daarayaa cajalkii isagoo si toos ah kugu dhawaaqay ku celi mid waliba wuxuu ku celinayaa laba jeer yumuşak G H I J K L ne o p re
she, she, te, u, ve, ye, ze. وعشان تركي سكول ee magaalada muqdisho Al-Ustaad Mustafa ku maranay buuggii Turkida Soomaali oo doonay ardayda Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan waxaad soo bartay alifbeetadiisa aan filayo markan waxa kugu xigi doona wuxuu ku leeyahay buugga haddaan dib ugu laabno wuxuu ku leeyahay yurmushaaga inta badan lagu ma dhawaaqo ku leeyahay luqadda waxay ka koobantay 9 ilaa xarf 8 wax shaqal turku wuxuu dhahaa sisli xarfi leer xarfaha shaqalka waa xarfaha shaqalka hal mar aan dul marno noqonayeen xarfaha shaqalka waxa waaye waa a i o u sideedaas wixii ka soo haro waxaa loo yaqaanaa shibani awe waa b j j d e da ka bood f g yumushaage he labadan ka bood j wax adigu shibane sidoo kale halkan waxaan kugu raacin doonaa magacyaalada turku wuxuu dhahaa shahiz zamir leri kaas wuxuu ahaa sha uu ahay hore ayaad u soo baratay zamir leri magacyaalo ben waxa waaye aniga aygi waaye sen waa adiga oo waa asaga ama ayada ama xayawaankii oo waa he she bis waa anaga sis waa adiga marka xushmad tahayna waa adinka waa yur hal qofna waa loo adeegsan jiray jamacna waa loo adeegsan jiray onlar waxa waaye ayaga ka soco ilig eclerin waxa loo yaqaan lahaansho ama possessive pronouns ben oo ah aniga wixayga wuxuu noqonaa benim sen oo ah adiga waxaad wuxuu noqonaa senin meeshaas senin ayaan kugu daray la soco videoga haddii uu ka maqan yahay buugana senin ka dhigo oonun waxa oo waa asaga oonun waxa wixiisa bis waxa waa anaga bizim wixina sis waa adinka sizinna waa wixina onlar waa ayaga onlarinna waa waxooda وعشان تركي سكول ee magaalada muqdisho buugiisa Turkida Soomaali oo ku maray Ustaad Mustafa cashirkani khalaas ayuu noogu keenay maadaama ay tahay bilowga alifbeetada luqadda Turkiga mar waliba luqadda aad rabto inaad barto halahan haddii ay isaga dhaqasan yihiin oo aan aqoonin alifbeeto sidii loogu dhawaaqi lahaa xarfii shaqalkii shibaniyaashii magacyaaladii lahaanshihi waa bilowga luqadda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.